waxaynu maanta ka hadli doonaa haddii eebba idmo wax la yiraahdo cabsida mustaqbalka. nin la oran jiray Blackwood oo ahaa agaasimaha dugsiga ganacsiga. Blackwood ayaa dhahay waxaan ka maqli jiray dadka iyagoo leh boqolkiiba 99 waxyaabaha aan ka cabsanayno ama aan ka walwalayno ma dhacaan. laakiin hadalkaasi uma aabayeelin ilaa aan anigu naftayda si dhab ah u arkay. maanta waxaan abaal weyn u hayaa tijaabadaas soo martay. waxay i bartay cashar aanan waligay hilmaami doonin. waxay i bartay inay doqonnimo tahay in laga cabsado waxaanan weli dhicin oo aynaan xukumi karin, lagana yaabo inaanay dhicinba. wuxuu yiri xasuuso inay maanta tahay biridii aad shalay ka cabsanaysay. inaad ka hortagtid weydii naftaada sideen ku ogaanayaa inuu dhici doono waxa aan ka cabsanayo ama aan ka walbahaarayo. waxaan u malayn jiray in murugada i haysata ama haysata dadka oo dhan barkeed in aniga jirkayga la saaray. waxaan ku noolaa muddo 40 sano ah nolol caadi ah oo dhibaatooyin midna lahayn. marka si lama filaan ah bay iigu kulmeen hal mar 6 mushkiladood oo kala daran waana kuwaan buu yiri. waxaan idin sharaxi doonaa 6 mushkiladood. Number 1, dugsigii aan lahaa oo aan maamuli jiray wuxuu ku dhawaaday inuu kaco oo albaabada loo xiro, waayo ardaydii wax ka baranaysay oo dhan waxay ku biireen oo ay galeen ciidamada. kuwii soo harayna way ka baxeen iyaga oo aan dhammaysan waxbarashadii, sababtoo ah waxay heleen shaqooyin lacag badan. Number 2, wiilkaygii weynaa wuxuu galay ciidanka. markaas waxa igu dhacay walbahaarka ku dhici kara aabba kasta oo wiil kaga jiro goob ciidan ama goob dagaal. Number 3, waxay bilowday dawladdii hoose inay rarto dadka dhul ballaaran si ay uga dhisto meel diyaaraduhu fariistaan. gurigaygii aan aabbahay ka dhaxlay wuxuu galay dhulka la qaatay. waxaana ogaa in waxa la igu cayminayo aanay ka badnaan doonin 10% qiimihii runta ahaa, iyo weliba anigoo waayay guri. markii ay ugu darnayd xaaladda guryo la'aanta waxaana lahaa markaas qoys ka kooban ilaa 6 qofood. Number 4, ceelkii aan biyaha ka dhaansan jiray oo ku dhex yaalay beertayda waa qalalay. haddaan ceel qotana wuxuu igu kacayaa ugu yaraan $500. maxaa yeelay waxa laga baqayaa meesha dhamaro laga wareejiyo si looga dhiso meel diyaaraduhu fariistaan. waxaan ku soo qaadan jiray biyaha tanag muddo 2 bilood ah. waxaan ka baqay inuu xaalku sidaa ahaado inta uu dagaalku socdo. Number 5, waxaan deganaa meel u jirta dugsiga aan maamulo ilaa 8 kiiloomitir. lugaha baabuurkuna aad bay igu gaboobeen oo haddii ay banjaraan lama helayo meel lagu banjariyo, waayo dagaalka dartii baa loo xiray dhammaan hawlihii baabuurta ku saabsanaa. marka waxaan ka cabsanayay haddii ay iga xumaadaan lugaha baabuurku inaan waayo waxaan ku tago dugsiga. Number 6, gabadhaydii weyneyd waxay dhammaysay dugsiga sare. waxay rabtay inay jaamacad gasho, aniguna maanan hayn lacag aan kaga bixiyo qarashka jaamacadda. waxaan ka cabsaday ama ka cabsi qabay haddii aan runta u sheego inay qalbi jabto oo ay murugooto. markaas galab baan go'aansaday inaan qoro dhammaan waxyaabaha aan ka murugoonayo. waxaan isdhahay ma jiraa adduunkan qof ay qabsatay dhibaatooyinkan ku qabsaday oo kale. caadana iima ahayn inaan daneeyo dhibaatooyinka yaryar ee la xallin karo. waxaanse ogaaday in mushkulooyinka hadda iyo hortaagan in aanay waxba ka qaban karin. markaas baan qoray dhibaatooyinka aan kor ku soo xusay
ee murugada igu dilay. Markii muddo yar laga joogay, waxaan hilmaamay inaan qorayba. Markii ay ka soo wareegatay 8 bilood, maalintii aan mushkulooyin ka qoray ayaa anigoo baaraya warqadahayga waxaan ka dhaxelay warqadii aan ku qoray 6dii mushkulo ee noloshayda halista geliyay. Waxaan u akhriyay si xiiso leh, laakiin ma dhicin midna dhibaatooyinkii aan ka cabsi qabay ee walwalka iyo murugada igu riday. Waxayna u dhaceen sida tan. Midii koowaad ee dugsiga ee aan ka baqayay inay igu dhacdo arday la'aan darteed ma aanay dhicin, sababtoo ah dowladdii baa u fidisay gargaar dugsiyada laga barto xirfadaha si loogu tababaro dadkii ku naafoobay dagaalkii, loona baro xirfadaha ay ku noolaan karaan. Dugsigaygina dadkii wuu qaadi kari waayay. Midii labaad, wiilkayga askarta galay nabad qab buu ku soo noqday. Tii saddexaad, cabsidii aan ka qabay inay beerta iyo guriga la iga wareejiyo maysan dhicin, maxaa yeelay meel 1 mayl ii jirta ayaa laga helay cid batrool ah. Markaas ayaa dhulkii la iska dhaafay. Midii ku saabsanayd ceelkii qalalay, waxaan qoday ceel kale markii ay beertii ii nabad gashay. Midii shanaad, lugihii baabuurka iyadana maysan dhicin oo lugihii baabuurkayga waxba igama noqon. Midii lixaad ee aan ka baqayay inaan gabadhayda xaqiiqada u sheego in aanan bixin karin lacagta jaamacadda, iyaduna way isxallisay markii la ii xilsaaray shaqada dheeraadka ah. Bay ii soo gashay lacag aan ku bixin karo qarashka waxbarashada gabadhaydii intaan jaamacaddii baa la furin. Taasi waxay kuu sheegaysaa mushkiladaha aan ka cabsanayno ma aha kuwa naga hor istaagi karaa waxa anagu aan rabno iyo halka anagu aan u soconno. Wax walbaba waxaan u xallin karnaa sida ay tahay, mana ahan inay noloshaada ay hor istaagaan wax aadan hubin inay dhici doonaan.